laakiin dukaankaas waxa roob looga dhigi doonaa inuu shabaab ku jiro amal meeshaas qawaarij ku jiro asleed waxa xabadaha loo guriday asigana wuxuu xabado ku ridaa waxa maqaalaha safar oo dhan marxuumka cid u gargaarayso oo qaadaysa malaha bahal cajiiba meesha taalo waan magaciida aqoonaa taa laakiin aad u dhawaada xatay ani meesha aan ku suuxay oo khatar ah ma yahay maandooriye waay ma ahan maandooriye hadduu yahay maandooriye dekada kama soo degeen markab laguma soo qaadeen dawladdu canshuur kama qaadateen macnaha inuu cabsan waxa ku cadeys xabada ku socota meesha asaa galayba koodhin uu cabsan yahay maba dareemayba dios buu cabsan yahay maba ogaba xabada meesha ka dhacayso in asigu dhici karto eedeysana cabdikariin xuseen maxamed samuurey dukaankiisa waxa uu ka tilmaamnaa dhammaan kuwa kale liido cabdicasiis ku yaala waxaana ku dhammaan nooc kasta oo adeegyada adigoo dhaqaaqin hawada kugu socodsiinaya sida xashiish kiniinka blue bilibili black hash koodhin serab iyo feeb ilaa isaan hoose ama aqoon weji ah ma heli doontid mana lagaa iibinaya adeegaas madaxgalka ah gudahana waa meherad ganacsi oo lagu iibiyo cabitaanada sida faanto coca-cola buskud abuu walad iyo adeegyada kale mana dareemaysid meel draagis inaad joogto askar uu hogaaminayo Deblenisa Saanuuri Cabdirasaaq Warsame ayaa u soo adeeg doontay dukaanka eedeysana Shamuuri ayna qayb ka yihiin Deblenisa Shaafici Xuseen Mire Deble Xooga Cabdixamiid Carab Cusmaan Indhacade iyo Khalid Maxamed Sheekhdon oo hadda marxuum ah dhammaantood gudaha ayay u galeen dukaanka laakiin eedeysana Shamuuri oo ay ku taagan tahay xisaab hore iyo taag soo dhacay habeen horeeyay ayaa bistoolad Biljima ula baxay kooxdan dukaankiisa soo gashay oo lahaa eedeysana Maxamed Nuur Cabdullaahi oo isna niisa ka tirsan Saanuuni iyo marxuum Khalid iyagana isma waalin askartii ilaalada shacabka ayay ashtako u geeyeen waxbase lagama qaban dacwadooda marxuum Khalid qorigiisa ayuu soo qaatay eedeysana Shamuuri ayaa se u diyaarsanaa oo markiiba laba baalooto luqunta iyo wadnaha kaga dhuftay marxuum Khalid Maxamed Sheekhdon goobtana ku geeriyooday intaasi kadib si aan kala sooc lahayn iyo wax uu turid shacab ah ayay rasaastu u wada sharqantay waxaana oo ka wada qaaday Saanuuni Shaafici iyo Maqane Indhacade oo 3 qasnadood isku bedelay taasoo ka dhigan in midkiiba uu isticmaalay 9 baalooto xabadaha AK47 wixii xigay ee natiijaha ee soo baxay ayaa noqday goobtana ka dhacay dhaawaca eedeysana Shamuuri oo 11 baalooto la hubiyay waxyeelana ay ka gaartay kaadi haysta ilaa uur ku jirta iyo dhaawacyo 3 qof shacab ahaa midkoodna sariiryaal uu yahay hadda dilka si ka soo geysan ma geysan daroogana ma gado kana hubka sharci darra biskoola weeyta lagu dhaho weey hub oo wiilkan meeshii iga tagay wad oo dukaankii iga tagay oo masquul oo ka aadi ayaa wad xabadaha rid maxaa keen xabadaha lagu dhiftay aye markii lagu dhiftay xabad ridaan xabad rid warid taqaanimay hore u taqaanimay ciidan ma ahayd markaa hore ciidan ma wiliga ma naqan laakiin waa ciyaal xaafadeed ahana magaba xeebaha ku bari jiray ku barat hubka darooga ma ganacsi ma ka ganacsi ambulance ayaa maxkamadda soo hor istaagtay waxaana laga soo dejiyay wiil daayar ah oo dhawaan ka baxay dugsiga sare jiif mooye xitaa aan fadhi karin dhibane Amiin Cali Xasan oo hadda sariiryaal u ah dhibkii ku gaaray liido xabadana dhabarka kaga dhacday taasoo sabab u noqotay in uu lumiyo awoodiisii jirka haweenadu ka mid ah yar waxa isla soconay oo walaalkay markaas yarkii markay barnaamijka noo dhamaaday aniga asaga meel hotel ku jirnay DJ-nimo iyo waxa ka shaqeeynay markaas kadib markay hawshan noo soo dhamaato soo wada baxnay yarkii wuxuu dhahay meeshaan igu sug dukaan meeshaan galaa dukaankii uu galay waxaar kadib yarkii markuu waayay inuu jawaab soo siiyo waxaas dhahay dukaanka gal soo fiir inuu joogo in kale meeshii igu la qabsatay marka maxaa ka dhacay meesha xabado yaas xabadaha maxaa isku magaal leh wallahi ma aqaan aniga wadada isticmaalay waa isku soo maray xaafadayda rabina aad dukaanka xabada ay ka bilaabanaysa oo ku dhaxdhacaysa ma joogtaan marka muu gal yarka yarkii meesha soo galay wuxuu dhahay waxaar intii igu sug waxa soo gadanaa aye markuu soo daha arkay sidii u galay dukaanka daba gashay soo fiiriyaas dhah yarkii waa waay ma joogo ku jirin meesha ku jirin anigana meesha masiibada igu la qabsatay adiga ciidan ma ahayd ma nin hubaysan ma ahayd qor wato maya waxa sanan ciyaal xafadeeda iska ahay
habeen jimce ahayd baashaala soo aadnay aniga yarka kale markaas maxaa ka wax shaqeynaysa ma ka shaqeeyaynin markii aan iskuul dhameeyey caarab inaan jaamacad iyo wax galo shay wax ku gaareen marka intee wax kaaga dhaceen dhabarkii iga dhacday dhabarka dambe xabad kaaga dhacay aa caafimaad ahaan maxaa ku gaaray marka dhaqaatiirta maxay ku sheegeen dhakhaatiirta wallaahi waxay dhaheen wax ma loogu qaban karo meeshaan dibadda ma tagta haa masar ayagana waxay dhaheen saas camal wax ma ka qaban karo markii xabadihii iswadaarsanaa kugu dhacay miyaa qof mise dadka ma taqaani isxabadihaadi maya ma aqaano isxabadiha ma taqaani maya wejigiisa ma arkan marka yarkii oo isla socoteen oo dukaan kale ma joogaa oo yarkaas la soconaa maya dadka la dhegeysaa ma ku jiraa ma joogaa ma yarkaas xaafadu jiraa intii waxaan bilaaban ka hor baxay miyaa haa ka hor baxaba intii igu sugo dhahay anina soo laabahayo ma leeyahay toos u baxay maxaa maxkamadda ka dalbanaya wallaahi inay xaqaygii soo dhiciso ama maxkamad ka dalbaha aada u mahadsantaha allah ku caafiyo maxamed meeshaan dhacdaa ka dhacday dadaa ku dhintay dad badanna waa dhaawacmeen 3 qofna waa dhaawacmeen qofna dhintaa leeyahay xilli dambana waa ahayd adiga intaa joogto markay wax dhacaya say wax u dhaceen horta haddaa ku dhaho meesha aa joogay ee wax ka dhaceen horta beenaa kuu sheegay wow meesha horta xabada horta way bilawdeen ani geesaa maraya meesha meel u dhow agteedaa jooga xabadaa dhaceen xabadii adee dhaceen anu ubmaa wataa dadka horteenaa ka mid ahay maxaa qabataa maxaa taabtaa ani mootoolahay bajaaj bajaajaa wadaa marka la kala orday meesha meel u dhow aa yar dhaabacay ugu imaaday yarkii meesha ugu imaaday dadka oo ku tilaabsaa arkay yarkaa gargaar u fidiyaa qaaday iyo yar kale isbitaalkaa geeyey laba qaad isbitaalkaa lagu imaaday meeshaa lagu xiray dhowr iyo 20 beriyaa xirnaa aad naftigaaga meesha wax ka dhaceen oo laysku xabadinayo ku dhow dheed maxay ahayd meeshaas maxay ahayd meesha horta meel oo waxay ahayd oo meesha mootooyinaa buuxeen iyo dad iyo nabad sugidna way joogtay dukaanka shamuuri ma taqaana ana cabdicasiis markaas waa ku cusbaa markii soo dego marka meeshan mootooyin ayaa lagu horu mootooyin ayaa leha mootooyinkii xabadii hadda dadka kala ordeen yar oo magaciisa shoodha in laabo maleha oo dhaawaca waxay ugu imaaday meel oo wax ka dhaceen meel ka dhow oo soo dhaawac oo dhiig ka baxay dadka oo ku tilaabsay arko ana waa fiirsay markaa qaaday mee qof qaade laba qofood qof dhinta ma ku jira ma mid gacantay ugu taala midna lugtay gacantay ugu taala maleha ma jooga ku inta ku jira ma ma way maqayn markanna waxaa la soo gaaray beer masheegtadii doorkeeda CCTV camera iyo xeerlaaliye kabtan cabdicasiis cusmaan faarax cabdiyare goobta waa goobtiisa ganacsi wax hadda wada hadalka ku jiro waa maxamed asad iyo cabdullah ramcad asigi iyo waxa loo kala dabqaadaa iyo waxa loo kala dabqaadaa ninka la yiraahdo sahnuuni iyo shaafici iyo ayaga loo kala qaadaa garnaqsiga hadda meesha ka socdo laakiin labaduba koodhini cabsiyi macna war ma biyeelayaan meesha marka waxa ka dhici doono maxkamaddu ay arki doontaa meesha waa iska taagtaag waaye koowaad iyo xaaladda goobta sida ahayd ugu doomiye goobtan waxa taagan oo qoriga wato waxa waaye shaafici la wadaag oo ninka la taaga shaatica ila wadaag waaye shaafici la wadaag waaye shaafici la wadaag inuu yahay noo sheeg isaga noo sheegay cid kale marqaati loo qabo maayo waa sidii sheegayay marag inta aan keennay mootooyina joogo goobta booqina wali waa jiriyaa marka waxaan rabaa maxkamad inaan ku tahay marabo saan horta goobta u taallaa goobta wax ka dhaceen saan waaye ninkan waxaa lagu qancinaa wali la leeyahay niyow joog dagaalka dhaaf nabad sugidaa tahay dalkaa kuu baahan waxaa lagaaga baahan yahay furimaha hore ma ahan dukaankan ninka dukaanahan waxaa la leeyahay niyow bastooladan dhig may anoo shacban dagaalama idhaaf koo dhinac cabsanaya waxaasoo daldala marka waxyaabaha uu cabsan yahay keenayso in bastoolad iyo qorayba uu ku dagaalamo eedaysana shamuuri uu ku dilo marxuum qaali marka waxaan rabaa inaan toos dagaalka u geeyaan rabaa markaan saad dareemayso waxoogaa meesha waa isbedeshay oo la soo camiray doodda weli waa socotaa meeshaas dadka soo baxbaxayaan waa dukaanka shamuuri weli dabqaadkaa socdo oo loo kala dabqaadaya nimankan ishaysto meeshaas waxaa qoray hadda soo fogsaday waa maxamed waxaa waaye sahnuuni waay ninkaa qoriga watani oo hadda meesha gelaayo waxaa waayey ninka la yidhaha shaafici la wadaag waaye kan jaakadda waddo hadda galaya marxuumka waaye marxuumka marka waa la soo jici doonaa dhuuntan iyo wadnaha lagu soo dhufa doonaa maxamed asad waaye baashaas wax wad koofida kaaboyda waa kan marxuumka waa kan mudu guddoomiyey waa kan jaakaddaa ku cuslaa doonto halkaasuu ku dhici doonaa halkaasuu ku ruux bixi doonaa oo ku dhiman doonaa waa kaas waa meesha ninka ku dhacay waa ninkaas soo laabanaayo waa sahnuuni waaye oo kaaboyda wato dhankaas kale ninka dagaalamaayo waxaa waaye shaafici la wadaag waaye ninkan waa cabdixamiid indha cadda waaye oo hadda dhahay qorayga isii qoray ma wato qorayga isii oo leey laakiin sahnuuni qorayga ugu dhiibi maa meeshaan uu ka biyo diidaa
asaa xabadaha ku ridaay gudoomiye marxuumka meeshuu yaalo meeshaas waa dul marayaan qaadi maayaan saaxiibkood waay halkaas waxa soo aadayo waxa waa Shaafici wadaag waay wuxuu qorigu soo dhiibi doonaa markii indha cad waa kana indha cad hadda qorigu soo dhiibi indha cad ilaala qaran uu ka tirsan yahay waa ninka xabadaha meesha ku qufay marxuumka cid u gargaarayso oo qaadaysa ma laha laakiin dukaankaas waxa roob looga dhigi doonaa inuu shabaab ku jiro camal meeshaas qawaarija ku jiro asleed waxa xabadaha loo guridaa asigana wuxuu xabado ku ridaa waxa maqaalaha safar oo dhan oo ku ridaa marxuumka wali waa yaala saaxiibkood waaye geeska inta galayna xabad ku ridaa waa kana waxa soo laabta hadana indha cad waay sahnuuni la socdo markaa mid gudoomiye sahnuuni la socdo darbiga uu galaa sahnuuni wuxuu ogaanaa in meesha dukaankii xabada ay soo dhici waayay oo dhaawacmay eedeysana shimuray meesha uu gali doonaa marxuumkii qorigiisa oo meesha ku jiray ayuu soo qaadi doonaa waa kana sahnuuni waaye ka boyda ninka wato waaye marxuumkii wali waa yaala mid gudoomiye waxyaaba cajiibka ka mid tahay wax u gargaarayo malaha waa kan sahnuuni waaye indha cad waaye sahnuuni waa galaa macnaa inuu cabsan yahay waxa ku cadeeyay xabada ku socota meesha asaa galayba koodhiin uu cabsan yahay maba dareemayba diyaas buu cabsan yahay maba ogaba xabada meesha ka dhacayso in asigu dhici karto wuxuu aaminsan yahay inuu yahay sar iyo shub inuu yahay macnaa waana daraagiska keenayso meeshaas qof ku jiro oo qoray wato shimuray oo maatoon ka dagaalamay shaba uu leeyahay qoriga soo qaadana xeebaha ka dareemayso gudoomiye waxa waa daraagiska dhibaatada uu leeyahay kamid tahay sana sahnuuni uu leeyahay wax ficilka hadda uu sameeyay asaa hadda la yaab hadaa weydiiso waa macangagnimo qoriga soo qaato waa kana waa kan waxa qaaday indha cad qabsado qoriga hadda marxuumka gargaar loo fidana marka yaa qaaday waa sahnuuni maanta oo dhan maqaadin markuu dhintay ee hubsadeen inuu dhintay ayay sahnuuni waa kana hadda mar labaad indha cad waa kana mid gudoomiye meesha qoli qoray lagu haya sahnuuni waa kaas mid gudoomiye dukaankii hadda la galay indha cad waa kaas soo qoray waduli waa ka sahnuuni feeri waxbada ku rida dad ku jiro meesha waa kaas gudoomiye darbi walba xabada ku rida sahnuuni waxaana ka dareemaysaa inuusan qalbigiisa joogin uu yahay qof daragis ay hogaaminayso waa kaas haddana waa bilaabatay dhinacaas waxaa soo ridaa Shaafici wadaag waay goobtaas marka waxa yaalo dhaawac yaal mootada agteeda dhaawac yaal dhaawacaas oo goobta yaalo ayaa la qaadi doonaa waana sa dareemaa inuu yahay amiin waa dhaawacaas la qaadi la yahay amiir daboolmay dhulyaalka ah waay mootaas lagu qaadi doonaa goobta marka dadka dadku isku soo bixin maanta oo difaac loo kala jiro marka dhaawacaas mooto la saarayo baraliska naqday ee meesha ku dhaawacmay waa amiin oo aan ka warheynin waxa meesha ka socday ee dukaanka dhexdiisa ku soo dhaawacmay ee markuu soo baxan meesha ku dhacay gudoomiye marka arintan waa arin qatar ah ee sabab u tahay daraagiska waay marxuumka dhintay ee sana shimuuri gacantiisu ku dilay ee aad arkayseen inta baxay jaakada siibay ka bacdi ruux baxaayo waa kana marxuumkan wuxuu la socday oo saaxiib la ahaa sahnuuni iyo Shaafici ila wadaag Shaafici ila wadaag iyo sahnuuni waa arkay gudoomiye 10 daqiiqo ay korkiis ku dagaalamay saaxiibkood gargaar uma fidin ma qaadin markoo dhintay hubsadayna qaaday gudoomiye waa arxan darrada nimankaas eedeysanayaasha ay ku dhaqmeen oo bilaadanimada ka fog adiga laba habeen isku xigtaa meesha dagaalku galaysaa lagu waxaas wax kama jira laba habeen isku xigtana dagaalka ma galin aye kaas hadalka ma dhegeysanayno dad dhegeysanaya yani habeenka labaad habeenka koowaad iyo habeenka labaad oo sheegay waxaas ma jira hal habeen leeyahay habeen la tagtay aye habeenka falkaan dhacayn leeyahay maxaa dagaalka dhabta ku gashay inta waxaas xabada maxaa loo furaa anaga xabada iska furna maahan xabada nafteena ku difaacayna kaas anagana waana la xabadeynay ninkaan ana xabadeynay anaga wax xabada zaid u baxay xabada badan ridin xabada badan maridin xabadaas wax shaqo ma kulli mid gudoomiye yani haye yaa shaqo kule goobta markay xabada ka dhacayeen ma ku sugneen baani gadaala ka imaaday yarkan saaxiibka dhaawiciisa le wax ka qaaday xeer ilaaliya hadda soo sheegayana kaamiradu daare magacayga loo ku dhiganaa magacaygu sheegaya macnaha in ani kaamirada ka muuqdo laakiin ma ka muuqdo ani qofkaas si fiican loo fiirsho waa kaa diriiska hadda qofkan uu tusayay iyo diriiska markii ani soo xiraya aawatay labay kala ahaayeen saldhigga cabdicasiis boorka lagu sawiraani diriiska wata xaggaas laga ogaanaa diriiska qofkan watana diriis kaleeto waayo adiga meesha maxaa ka doontay aniga cabdicasiis la degana
saaxiibada ma la soconno maxaa saaxiibadii ay kale ii yimaadeen maxaa la isku dagaalo waxaan xabadaan dhabkeen goob dalxiis anaka dalxiis la u soconaba liidaas ii galeen sagaal saaxiibada mal dalxiisa waa deganaaba xaafad jidbaanta agtiisa deganaani wax meel ah ay laakiin waqti bay ahayd shamuuri maxaa isku qabateen adig shamuuri mis qaban baani qof ma la dagaalamin ani waxa uu bacdaani marqaati rawaan adiga maxaa biskooladaad u geeyay shamuuri gudoomiye aniga haddii CID la tago taleefankeyga dib loo raadin waa la heli karaa waa hore saas oo kale anoo suuli ku jiro bisoorda ugu fakato 14 days kaliya ay u dhaxaysaa habeenkoo kiiskan dhacay then sidoo hadda qareenkeyga sheegeen aniga ilaa iyo 12 year aan sirdoon ka tirsanaay weligeyna macna xataa iska daa meel qaldan oo taagnaa ama gabar oo si qaldan u fiiriya xataa meel ay ugu qoran tahay male markaana habeenkan habeen oo Friday eed magaaladan liida iska soo aaday gabra ila socotay meesha xeebtaan yara joogay markii adiga 8 saac amal eedan gabadhii waa ka soo tagnay si Friday-dan meesha waa iska magaalo waa wada garanaysaan gabadhii waa bajaaj saaray markaan ka soo laabtay yarkaan shamuureyna wiil aniga aan family friend aan nahay asaga Sacuudi isla joogi jireen oo aan ku bartay bajaaj la bas marka dukaanka sidaan ugu soo leexday gasa cabitaan aan ka furtay oo cabitaanada la cabo caadiga ah meeshii aan fadhiistay lugta waxa isaanad qaybta miiska koro moogiya qaybta hoose oo dukaanka oo alaaba la saartay isaanad ee bistoorda meesha isaanad marka maadaama oo sintaan iyo fiidiyoguna waxa laga arki karaa taleefankeyga ku jira oo CID u yaala sintaan iyo xabada iga tii lugta qaybtaan horaan ku wada bistoolada meeshaana bir lagu ma qaadi kar sida caadiga xabaarna xeebtii waxba la joogo marka ugu dambeynka markaan dukaankiisa soo galo meesha kaliya uu kalsoon aan isdhaa ama aan garanaay xabaara meesha ku jiray waxa cabitaan ku cabay meerad ka soo horjeedo wixii CC-ga hadii si fiican loo barxatay aniga teemka aan dukaanka ka tagay teemka wax dhaceen wixii hadii si fiican loo bar wax qarsoomi kara ma oo meesha kaamirooyin caalami ah ku yaal suuliga aaday asaga xataa waxa gacanta ka saaran male dhinacaan dukaanka albaabkiisa ku fadhiyo oraa alaabta iyo la soo caayir maadaama hadda korna bisoorad si easy saas oo kale igu fakatay meeshan lisbaaray laftirkeeda aan galay oo meherad ay tahay waana qaybkan ilaaha kulay ku cilmi leh waa 15 minute ma dhamo inta aniga aan ka maqanahay dukaanka iyo ninkaan inta wax dhacaya sidaan ku sheegay qaybka ilaaha ku cilmi leh mana isleen oo hadii aan culayskaas qabo aniga igu fakata hadaa deer wixii kama aan tagileen sidaan ku sheegay aniga ilaa 12 sano sirdoon ka tirsanay weligeyna wax yar oo eeda meel igu qorantaa male oo dib baa loo baari karaa marka xaqiiqada jirto gudoomiye waa kaas aad aan u maasantay aniga sinta marka aad ma isku dhifto macna inta joogtaa marka xaafadaan jooga aniga igu fakatay xaafadaan joog saas darteed marka taxadir suuliga maadaama aan galay taxadir aanan u dhigay inuu dhibkaan waxaan imaanaa daawaan kama aan tagleen feebka ku jiro waxa ku jiro gudoomiye waxyaabahan koodhinti waa tana waa sheegay maanta oo sharaxay waa tana koodhinti gudoomiye waxyaabaha cajiib kale maxaan gudoomiye waxa uu haye markii aan tagnay goobtaas waxyaabaha cajiibka waxa kamid ah geedkan waa microphone laakiin waxa la galshay bilibili waxyaabahan dhan marka dukaanka tagto waxa uu tagaysaa faanto caafi iyo waxa uu tagaysaa sameecadahan iyo microphonadan uu tagaysaa waxa leedahay dukaankan sheeb ahaan xanta kuleel waa lagu gadaa baan waa lagu gadaa electronic waa lagu gadaa as leedahay laakiin ninka afara yaqaan wuxuu leeyahay microphone soo qabo leeyahay microphone soo qabo miinis waa bilibili soo qabo bilibili waa kana inta la soo baxsho mudug gudoomiye guud ahaan marka aragto ciyaalka yararka la siyaabasha qof ciyaal loogu tala galay laakiin daragis ana loo isticmaala wadanka qatartideena leedahay wuxuu leeyahay ilmiya soo gata hadda wada uu leeyahay laama amni waa eedasir shamuuri marka waxyaabaha cajiibka wax kamid ah baashan xashiishka iska arki maysid dukaanka waxa ku yaalo oo hadda kilibku noo saamix waayay waxa la geliyaa sumac hoostiisa la geliyaa kor marka ka aragto sumca iyo joodariya yaal meesha waa ku fadhiisanay caadi lambar 2 heeb ahaan marka fiiriso eedasir shamuuri gar weyn u deedsan garka weyn Soomaalida badan waxay ka aamintaa qof wadaada oo baalkii laakiin isagoo garkaas leh ayuu baashan gaday mid gudoomiye waxyaabaha marka maba arkaysi baaday laakiin baarista xafiiska ilaalinta oo u tababaran in laga daba tago iyo goobaha la galshaba ayaa soo saaray waana dukaankiisa buugan waa buuga ay ugu qoran yihiin dukaankiisa la soo qaaday waxa ku qoran deemaha ka maqan waxyaabaha ka maqan carfiso $2 carfiso waxa lagu qoraa deemaha waxyaabaha lagu kala qaado waxyaabaha soo ku qoraa laakiin tan lagu qori maayo maxay laama amniga soo qabtaan uu akhrina hadii marka laamaha sharciga iyo laamaha amniga akhrina og yahay deen loo ma kala qaato baashan iyo cash way tur waa bas dhag way mudug gudoomiye in goobta aan tagnay waxyaabaha cadeeya waxa kamid ah shamuure inuu meesha ka dagaalamo sheeg waa in la helaa rasaastii fooq in la helaa
waxaa keenay mid gudoomiye rasaastii meesha ka muuqata sidoo kale bahal cajiiba meesha taalo waan magaceeda aqoonaa taa laakiin aad u dhawaada xatay ani meesha aan ku suuxay oo khatar ah tubaak shiishid soo hadda baara sheegay bahal khatar waay soo hadda baara sheegay waxyaabaha marka dukaankiisa laga soo qaaday marka qof waxaan cabay waa ka suurtowdaa dukaanka saa aragtin loo waxbaday waa qaadanaysaa maxaa yeelay waxaana cabtay oo khatarta ah oo jawigaaga bedelay maxkamadda marka waxaa la wadaagaynaa faylkii dhammaa ee laga diyaariyey nimankaa waxay dhaawaceen amiin dhakhaatiirtu waxay ka diyaariyeen ilaa ku dhawaad 3 fayl oo caafimaadkiisa ku saabsan dowladda masar isbitaal ku yaalo ayaa ka diyaariyey waxayna sheegeen inay waxba u qaban karin waa masar muddo gudoomiye waxaan la wadaagaynaa warqadda isbitaal madiina ay ku cadaynayso dhaawacan inuu yahay darajada 3aad oo dhaawac culus ah sidoo kale waxaan maxkamad la wadaagaynaa marka aan dhaano sana shamuure bastoolada wati uu yiraahdo sana maxamed bastooladii ma waxaan haynaa bastooladii nisa ay ku qoran tahay kuna qoran yahay ninka la yiraahdo sana shanaad oo bastooladan ah waana bastooladii lagu dilay marxuum qaalib waxaan maxkamad la wadaagaynaa muddo gudoomiye dhaawacan inuu culus yahay iyo waqtiga la keenay isbitaalka warqadda isbitaalka cadeynaysa saan loo dhihin masigawa ay ku soo dhaawacay albaabkaas uu soo xiro sidoo kale waxaan la wadaagaynaa marxuumka dhinta dhaahno waa in la cadeeyo shahaadadiisa dhimashada waa tana waxaan maxkamad la wadaagaynaa sidoo kale sawirada dukaamada iyo aan ka soo qaadnay si loo ogaado magaca Ceeltire inuu asiga la baxay in kale dukaanka Ceeltire ayaa la yiraahdaa waana dukaankiisa weli xafiisku u xiran yahay weli maxkamadda way tagi kartaa hadeertaan oo furi karnaa waxaa laga yaabaa qaarkood daraagiska qaar in laga helo waa xiran yahay xafiiskii maxkamadda u xirto way marka aan ka cusubna kadib alaabtan waxaa soo qaaday dukaankaaga ma gado ku ogeyn mana gadeen haa midda labaad dilkaan aniga mise bareer muu geysan dadkan waa nisaf gaarne hubu wate anigana hub ma wadan hubka wiilaa meesha ugu tegay axmed nuura waxaa ugu tegay meesha ila fadhiye masquulow ka aaday masquusha intuu ku maqnaa ayuu arrinkaa dhacay hadduu joogi lahaa mayna dhicin leemu baaris qoto dheer oo lagu soo helay raadadka ku gadaaman galkan ayuu fadhigan ku sharaxay natiijada soo baxday baare saadaam cabdulaahi cabdi oo ka tirsan CID booliiska Soomaaliya si dhaba markaan u baarnay kiiskan markii aan wax ka qorno dhinacyada dacwadda markaan tagnay goobta dambigu ka dhacay oo aan ka soo qaadnay maandooriyaal kala duwan oo lagu gadiyay dukaankaas iyo fooqyadii laga riday bistooladaha iyo bistoolada iyo qoryaha lagu dagaalamay markaan wax ka qornay markhaatiyaal goobjoog ah oo isugu jira ciidamadii goobtaas ka ag dhawaa iyo dad shacab ah oo noo cadeeyay qaabka uu dagaalku u dhacay iyo waxa uu ka dhashay dagaalkaasi oo sababtay dhimashada marxuumka iyo dhaawaca 3 qof oo uu ka mid yahay eedeysanaha dagaalamay ee Shamuurey markaan aragnay muuqaalka kaamirada CCTV ee ku xunay dukaanka hareerihiisa ay duubtay markaan aragnay shahaadada dhimashada isbitaal Madiina iyo cadeymaha dhaawac muujinta ee isbitaal Madiina waxaa noo soo baxday qodobadan hoos ku xusan kow in eedeysanaha Shamuurey uu fal dil bareer ah u geystay Allah u naxariistay marxuum dable nisa Khalid Maxamed Sheekhdon sidoo kale in eedeysanaha Shamuurey uu isticmaalay bistoolo sharci darro ah oo uusan wax ruqsa u haysan sidoo kale in eedeysanaha KS Maxamed Nuur Axmed Cabdullaahi bistooladiisa uu si sharci darro ah ugu dhiibay isagoo ugu dhiibay inuu isku difaaco ama uu ku dagaalamo eedeysanaha Shamuurey sidoo kale eedeysanayaasha kale ah dable nisa Sahnuuni Cabdirasaaq Warsame dable nisa Shaafici Xuseen Mire iyo dable xooga Cabdiqani Carab Ismaan Indhacde ama Cabdixamiid Carab Ismaan Indhacde oo baxsad ah isla markaana maxkamadda ciidanka qalabka sida ay u jartay waaran soo qabasho ay si wada jira mas'uul uga yihiin dhammaan dhaawacyada 3 qof oo uu ku jiro eedeysanaha Shamuurey isla markaana waxa la isku dagaalay ay tahay maandooriyaha iyo hubkii uu sharci darrada ku watay eedeysanaha Shamuurey mudana gudoomiyaha baaris intaas ay kaga dhanta marxuumka waxaa sheegtay in uu ahaay sarkaal ama se askari ka tirsan hay-adda niso goobtaas oo ku yeelay dukaanka ma waxay ahayd goob
si sharci ah oo uga howlgalayay ama oo u xil saaraa askariga maya marxuum Khalid halka ay dhacdadiisa ama dhimashadiisa ay ka bilaabatay waa meel hay-adda asaga oo ka tirsan yahay ayna u xil saarin in uu ka howlgalo habeenkaas all right maadaama marxuumka oo u galay dukaanka oo milkiyadiisa iyo maharadiisaba oo lahaa ninka la yiraahdo Shamurey wuxuu horay u sii qabiyay soo maaha cabsi horay u jirtay oo ka dhalatay dhacdo ka horreeyay habeenkaas maya meesha hay'ad amniga ka jira hay'ad amniga u dacwoon lahaa hadii iskoolad ma soo qaateen ma jirtaa heshiisku soo gaaray kabaar ahaan oo tilmaamayo in dhacdadii kala gaartay Khalid oo marxuum ah iyo Shamurey oo dukaanla ah in maaragtay heshiis waafaqsan aayatu baqara ay ku kala bixeen wax af Soomaali la sheegay oo arkale wax dukumeenti ma arag ma jirtaa dukaankiisa ganacsiga asaga lagu yaqaan asoo ku dhex jiro nin hubaysan inuu u soo galo ma jirtaa maya dukaankiisa asoo ku jiro inuusan xabada furin oo dad xabadaynin oo xabada soo bilaabin ma jirtaa maya cid uu asagu banaanka ku dhaawacay ayadoo dukaankiisa ama banaanka uu ku dilay gacan dil loo haystaa dukaankiisa ka baxsan wax meel ka baxsan dukaankiisa cid uu ku dilay ma jirtaa xabaduhu markay isdhaafayeen gudaha horta dukaankiisa wax ku dilay laakiin dhaawaca gudaha iyo banaanba waa jiraan dilka dukaankiisa gudihiisa ka dhacay Soomaa dukaanka gudihiisa ku dhacay waxaa sheegtay hadalkaaga ku jiray in sarkaal loo tagay la yiri nin shacab ah oo hubeysan inta joogay wax saas kadibna uu yiri sarkaalkii xaniihiina fuula saas waa jirtaa haday baaristaada wali aflagaada kale ku sii daray dibka loo aad sheegaysay in dib lagu geeyo soo qabato gacantaada ma ku jiraan ma baartay qoriyihii saddex qori bay ahaa ma yeeleen hay-adihii ay ka tirsanaayeen eedeysanayaashan ma la wadaagtay warbixintoodii ma gaarsiisay ayaga waa lagu soo wareejiyay maxamed nuur waad wareysatay Soomaa wuxuu ku sheegay Soomaan inuu bastooladiisa uga tagay dukaanka Shamurey saas uu sheegay asiga naftirkiisu wuxuu ku sheegay Soomaa inuu dukaanku uga tagay bastoolada maya maxamed nuur marka ay dhacdadu dhacaysay oo xabadaha la isweydaarsanay goobta ma joogin Soomaa waa joogay wax hore oo falal noocan oo kala ama fal dambiyeed oo ku lug yeesho oo aad ogaato ma jirto Soomaa ma raadinba ku-xigeenka xeraalyaha guud ee ciidamada qaranka sida kabtan Cabdicasiis Cusmaan Faarax ayaa maxkamadda ka codsaday in eedeysanayaashan lagu qaado ciqaabaha ku xusan qodobada ay ku soo kala eedeeyeen xafiiska xilaalinta 4 eedeysane oo mid shanaadna maqano uu yahay sanaad koowaad Cabdikariin Xuseen Maxamed Shamurey wuxuu dhaawacmay waqtiga sare ku xusan oo 4 bisha 7 2025 isagana waqtigaas wuxuu dilay marxuum Khalid Maxamed Sheekhdon muddo gudoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh eedeysana Shamurey waa ganacsade ka ganacsada daraagiska saalaaligeeda xafiiska xilaalinta wuxuu ku soo eedeeyay qodobada hoose wuxuu ku soo eedeeyay 412 iyo 413 kuwaas oo sheegayo daraagiska ka hadlayo qofka caba ka ganacsada muddo gudoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh waxaan ku soo eedeynay in uu qalqalgelin iyo cabsi gelin dadweyne uu ka qayb qaatay waxa dareemaysaa muddo gudoomiye goobta wax ka dhaceen waa goobta dadka ay u dalxiis tagaan oo muunadii magaalada mar qaar marka la soo sawiro marka korka aragta xataa niyadaada ay xasilayso magaalada quruxdeeda soo bandhigayso laakiin Shamurey meesha wuxuu u bedelay cabsi waxaan cadeehayo waa xabadaha meesha ka dhacay iyo dukaankiisa ciiltire waxyaabaha laga soo qaaday iyo goobtaas oo goob nasasho ah waan loogu talagelin daraagis iyo wax lamida si guud iyadoo mamnuuc u tahay haddana wuxuu ku gadayay afaaraan caalamiga ah muddo gudoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh eedeysanahan maadaama daraagis uu ka ganacsado oo sidoo kale aan caddaynay daraagiska in laga ganacsado in qodobo ay dhigayaan dambiya sidoo kale muddo gudoomiye aanan iska dhihine aan keenay wixii laga ganacsanay